السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان جنرال كان منير من صاحبه ku xirnaa soo dhawaada saaxiibkeen Munir muuqaal cusub iyo maalin cusub alxamdulillah isku soo laabanay waxaan rajeynayaa inaan nabad qabtaan alxamdulillah ana sidoo kale waan nabad qabaa dhamaanteen waxaan noo rajeynaa inaan ku noolaano nolol farxad leh caafimaad leh oo ilaahayna lagu xirnaado insha Allah muuqaalkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo mowduuc aan u arkay maanta inuu muhiim yahay oo aan isleeyahay aad ka wada faa'iideysataan dhamaantiin aniga iyo dhamaan asxaabta ku xiran jiranka Munir Mercy iyo dhamaan muuqaalkan inta dib ka daawan doonta meel kale ha ku daawatee waxaan rabaa mowduuc wuxuu noqonayaa sideen ku saxaa xiriirka aan la leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida ogtihiin noloshan waxaana abuuray Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu nagu camiray adduunyadan koonkan mas'uuliyad weyn aan loo dhiibay waxa ugu muhiimsan oo naloo abuurayna waxay ahayd inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan caabudno oo cibaadada aan asaga u gaar yeelno oo asaga kaliya aan caabudno oo mar walba cibaadadiisa iyo xuskiisa iyo amal wanaagsan oo asaga aan ku raali gelinayno oo aan asaga ugu dhawaanayno inaan sameeyno ujeedada ugu weyn taas ay ahayd oo naloo abuuray sidoo kale inaan koonkan camirno oo waxyaabo badan naloo fududeeyay dhulkan cirkan buuraha naloo taagay dhulkan lagu adkeeyay biyaha ama roobka kor ka soo da'ayo oo dhulka ku dhacay kadibna mirihi ka soo baxayaan oo Ilaahay naga arsaaqayo yani intaas camiraad Ilaahay yani dhulkan inaan camirno ay ahayd ujeedada labaad ama waxyaabaha yani Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuuray bini'aadanka taas ka mid ahayd marka laakiin waxa ugu muhiimsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu bini'aadanka u abuuray jinn iyo insiba waxay ahayd in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadadiisa ay badiyaan yani in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caabudaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar walba acmaal Ilaahay ugu dhawaanayaan ay sameeyaan saas darteed marka sida hadda aan aragno noloshan dadka caadi markaan la noolnahay mar walba waxaan rabnaa qof walba inuu raali naga ahaado qof walba inaan sameeyno wax uu asaga yani aan ku raali gelinayno si yani xiriirkiisa aan u wanaajino tusaale qofka shaqada oo kale ama aan shaqaalaha u nahay aan u shaqeyno waxaan jecelnahay mar walba inaan raali gelino oo shaqada si fiican ugu qabano qofka isku fasalka nahay ama macalinka iskuulka wax nooga dhigo waxaan jecelnahay inaan raali gelino oo su'aalihii wixii noo diray waxbarashada ama roobka shaqeyno haddii imtixaan tahayna aan ku dadaalno xifdino habeenkii aan soo jeedno taas waa xiriirkii bini'aadanka ayaan aad ugu dadaalnaa oo ilaalinaa inuusan naga xumaanin oo hadhow marka aynaan kala fogaanin ani qofka kale marka sidee ayay noqon kartaa xiriirka Allah subxaanahu wa ta'ala ay ku abuuray ee koonkan ku keenay inaa caabudid ku siiyay nimco kasta oo aad hadda haysato oo ay ka mid tahay caafimaadka nolosha aan nooshahay garaadka caqligaaga oo dhameystiran lixdaada lixaad oo haddii Ilaahay dhameystiray aad haysato nimcooyinkaas aadka u weyn laga yaabo family inaad leedahay inaad xaas leedahay inaad awlaad leedahay walaalo inay kula dhasheen inaad shaqeyso inaad ganacsi leedahay waxyaabahaas dhan waa nimcooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu na siiyay oo yani nagu manaystay marka nimcooyinkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri ma bikum min ni'matin fa min Allah nimco idin ma sugnaanin ilaa in Ilaahay xaqiisa ka imaatay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nimcooyinka uu na siiyay Ilaahay waa ugu mahad celinayna alxamdulillah marka Allahaas subxaanahu wa ta'ala oo nimcooyinkaas na siiyay soo ma aha inaan xiriirka aan la leenahay aan wanaajino oo aan qurxino oo aan sameeyno waxyaabo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka yahay oo aan ugu dhawaanayno oo asaga aan ku raali gelinayno haddii aan u soo laabto marka mowduuca sideen ku saxaa xiriirka aan la leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala salaada ilaali waqtigeeda ku ilaali salaadaha waajibka ah tuko waqtigeeda ku ilaali salaada aan ka bilaabo kuwa waajibka shanta salaadood waxaan ku xijinaynaa salaadaha oo nawaafisha la yiraahdo ama rawaatibta aan ka bilaabno kuwa salaadaha waajibka markii la tukado lagu xijiyo ama laga hormariyo kuwaas aan ku dadaalno oo waqtigooda aan ku tukano salaada kale ee nawaafisha kamid ah oo aad u fadliga badan waa salaatul leylka aan soo kacno isbuucii 2 ama 3 habeen aan soo kacno habeenkii 9 saac 8 saac xillidaas oo kale aan soo kacno salaada tukashadeeda aan ku dadaalno oo 12 rakacadood oo kale ah oo witrkana ku jiro salaadaha marka koow waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xiriirkiisa aan ku wanaajin karno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan ugu dhawaan karno waxa koow ka ah salaada kan labaad aan badino dhikriga Ilaahay xuska Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan badino xuska Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo la badiyo waxaan ku sixi karnaa marka xiriirka aan la leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo waxaan dhikriga Ilaahay waxa ugu weyn quraanka tusaale maalin walba juz akhri xiriirka aad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala la leedahay aad u qurux badnaana wuuna wanaagsanaana
wuuna ku saxmaa oo waa kan labaad wili quraanka aad ugu muhiimsan adkaaraadka kale way soo galayaan adkaaru sabaax oo subaxii adkaaraadka la akhriyo adkaaru masaa adkaarta galabkii la akhriyo oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo arooreen dhamaantooda adkaaraadka marka guri galeys marka ka soo bixaysid marka wax cunaysid marka cabis marka isfadhi ka kacaysid marka masaajid galeysid marka salaada tukatid adkaaraadkaas dhan oo la akhriyo inaad akhriso mar walba ayadan waxay sixi kartaa xiriirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ala leedahay maxay mar walba Ilaahay xusaysid Ilaahay ayaad yani xasuusan tahay Ilaahay baad xusaysaa oo يعني غفلة كله أم هلمام كله كومجرو إلهي مركا حسيدني أصلاً إلهي سبحانه وتعالى وكحوس يا فاذكروني أذكركم أي يري إلهي سبحانه وتعالى واشكروا لي ولا تكفرون يحس عن إذن حسي مرك حسك إلهي سبحانه وتعالى أم بدنه ساز حق وكاس وقضب كلبات وقرآنك وجوين هاي قرآنك وحال روا ما أنت إن الجزء آخر سو هدي أذكرته هدي هذا حافظ هين كتابك كآخر هدي حافظتها كورك آخر ولي وحافي عن إن كآخر مرة قرآنك كتابك وجزء كآخر سو waliba hadii juska aan ka gaari garin xataa 5 baal oo kala akhri wax uun quraanka maalin walba joogto u akhri si markaas aad u wanaajiso xiriirka aad la leedahay Allah subhanahu wa ta'ala kan saddexaad wuxuu noqonayaa ka fogow macaasida iyo dunuubta mar walba oo macaasida aad ka fogaato waxaad mar walba u dhawaanaysaa inaad wax wanaagsan samayso laba shay uun la noqonaysaa ama inaad maanta wax wanaagsan samaynayso ama maanta inaad macaasi ama wax xun iyo dambi aad samaynayso ama maanta inaad run sheegayso ama maanta inaad been sheegayso labadaas u dhaxinaysaa ama inaad iska aamusan tahay ama inaad wax laqab ay ku daldalmayso oo dad isku diris iyo hadalka badanaa waa ogtahay qofka hadalkiisa haduu bato micno ma yeelanayo dunuubtiisna way badanaysaa oo meelo badan ku dhacdhaca maruu qof xanto maruu dad isku diro maruu been sheego maruu yani balan been galo hadhoon uu fulin karin maruu amaano dadka intuu wax ka qaado marka hadalka badan oo iska yareyso macnaha mar walba waxay ku dhaweynaysaa waxyaabo fiican inaad macnaha waxyaabo xumaan inaadan sheegin marka kan saddexaad wuxuu noqonayaa macaasida aan ka fogaano يعني wax wanaagsan maanta hada sameynaysid wax xun ma sameynaysid macna maanta wax wanaagsan hada sameynaysid dunuubta ka fogaatay marka hadii aad macaasida waxyaabaha ku soo jiiday waxyaasna asaga fogaatay waxyaabaha dambiga ku keenayo aadan waxay ka saxiisaa ama ku saxiisaa inaad yani xiriirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala alla lahayd u wanaagsanaado waxyaabahaas ayaan ku sixi karnaa inaan wanaajino xiriirka aan la leenahay Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah Ilaahay naga dhigo kuwa hanuunsan oo wanaagsan oo wadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay toosan ku sugnaada oo ka fogaada waxyaabaha xumaanta ah ee sameeyo waxyaabaha wanaaga Ilaahay lagu raaligelinayo Ilaahay loogu dhawaanayo tan kale waxa muhiim ah qofka hadii uu rabo inuu yani xiriirka Ilaahay leeyahay inuu wanaajiyo waa inuu naftiisa koob ka adkaada macnaha hadii qofku mar uu naftiisa ka adkaado waxa uu suurtagal noqonayso oo u fududaanayso inuu markaas xiriirka Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay u wanaagsanaado maxay leeyahay nafta mar walba waxa oo gadaal ku soo jiidayo oo diidayo inaad horumar u sameeyso horumar sameeyso ayada oo yani horumarku wuxuu noqon karaa ki Ilaahay ku raaligelinaysay oo xiriirkiisa ku wanaajinaysay nafta mar walba gadaal ku soo jiidaysa salaada oo kale tukashadeedu caajis ka saaray waxay wax u aragtaa raaxo u aragtaa inaad telefoonka ku mashquulsho ama dhalada kor fariisato ama aad yani meel iska fadhiso oo ama iska socoto ma salaada oo kale ku diidaysa marka mar walba nafta ma ogola waxyaabo wanaagsan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hore uu sheegay inna an-nafsa la amaratun bis-su'i ay yiri nabi Ilaahay subhanahu wa ta'ala nafsa mar walba waxay dad ku fartaa ama dadka fartaa xumaan marka koow nafteena aan ka adkaano kadib insha Allah way noo fududaanaysaa inaan saddexdaas shay aan sameeyno koow inaan salaadaha waajibka iyo kuwa oo rabaatibta ama nawaafisha inaan ku dadaalno oo waqtigooda ku tukano oo salaadaha marka waajibka tukano kuwa sunnada aan ku darno salaatu leelkana aan ku darno waliba salaatu duha ayaa dil ugu daro sunnooyinkaas waaweyn ee fadliga badan inaan ku intaas ku dadaalno salaada kan labaadna inaan Ilaahay xuskiisa badino oo quraanka ugu horeeyo oo maalintii ugu yaraan juz aan akhrino iyo adkaaraadkii kale aan sheegnay sabaax adkaaru sabaax iyo adkaaru masaa midka saddexaad ugu dambeeyana waa inaan yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala macaasidiisa aan ka fogaano waxyaabaha dunuubta Ilaahay yani raaliga ka ahayn inaan ka fogaano saddexdaas shay ay ugu muhiimsan waxyaabaha aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku raaligelin karno Ilaahay naga dhigo kuwa Ilaahay waafajiyo wanaaga iyo khayrka insha Allah muuqaalkan dadka badana kama helaan waa ogahay yani waxyaabo wanaagsan in laga hadlo oo marka muuminiintu ay u baahan yihiin mar walba in la waaniyo wax loo sheego loo xasuusiyo wadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin ayuri Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka wax u sheego waani muuminiinta waanadu way anfacdaay marka ma jecel dadku waa ogahay laakiin insha Allah intiin wanaaga jecel muuqaalka halkan soo gaartay waxaan rajeynayaa muuqaalkan inta aad jeceshihiin ee khayrka iyo wanaaga aad la jeceshiin u share gareeya muuqaalkana like saara haddii aad channelka ku cusubtihiin subscribe saarto idin soo dhaweynaya gacmo furan idin soo dhaweynaya waa mahadsantihiin
halkaan muuqaalku soo gabagabeynaya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. markale soo dhawaada.